السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكو سو دوادا تلفزيون مدنما تي في oo ah تلفزيون ku bixi doona afka Soomaaliga lagagana hirgeliyay magaalada Gothenburg ee xarunta labaad ee wadanka Sweden. Telefishinkan ayaa noqon doona telefishin ka qabtira bulshada ku hadasha afka Soomaaliga, barnaamijyo xiiso badan iyo waliba wararka la xiriira ku noolaanshaha wadanka Sweden. telefishinka waxaa hirgeliyay fikirkiisana iska lahaa suxufiyiin Soomaaliyeed oo khibrad dheer u leh howlaha saxaafadda isla markaasina idinka xaqajin doona wararka iyo waliba barnaamijyada aad u baahantiin. daawadayaal barnaamijkeena oo noqon doona hal saac waxaan ku daafuran doonaa wararkii oo ay noo soo gudbin doonaan wariyaasheena Cali Yaasiin Gudbe iyo waliba Maxamed Xaaji. mahadsanid Ibrahim. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba meel kasta oo aad inaga la socotaan ku soo dhawaada heelinka midnimo ee magaaladan Gothenburg oo aad maalin kasta oo sabti ah saacadu markay tahay 8:15 ilaa 9:15 hadda kadib si daawi ah ma joogta uga la socon doontaan midnimo. imikana ku soo dhawaada warka dalkan Sweden dhinacyadiisa kala duwan inaga soo gaaray oo uu halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Maxamed Xaaji. qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah waaxda socdaalka ee dalkan Sweden ayaa dabagal ku sameyn doonta dadka wax u turjuma oo ay dad Soomaaliyiin ku jiraan. dawladda Imaaraadka Carabta ayaa soo saartay liis dheer oo ay ku soo gudbisay ururo ay ku sheegtay inay yihiin argagixiso caalami ah kuwaas oo ay ku jiraan ururo ka dhisan wadankan aynu ku noolnahay ee Sweden. kamuun kamida kuwa dalkan Sweden ay dadka ku dhaqani waxay cabasho ka soo gudbiyeen hilibka xalaasha ah ee la siiyo caruurtooda oo khaasatan kuwa dhigta iskuulada kala duwan ee kamuunkaasi. dawladda Sweden ayaa waxaa lagu eedeeyay in lacagta loogu tala galay kaalmada caalamiga ah ay ku bixiyaan dadka soo galootiga ah ee dalkan iska dhiba iyo sidoo kale dawladda Sweden oo noqotay wadanka koowaad ee bixiya dhalashada dadka soo galootiga ah ee ka soo dalaaba ama ka soo qaxa dalalka kala duwan ee caalamka. qodobadaas ayaad warkeena ku maqli doontaan imikana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan.